wararka naga soo gaarayo magaalada Laascaanood ayaa waxa ay tibaaxayaan in dagaal xoogan ay ka soconayaan dowladka magaalada waliba gaar ahaan meelihii aan u dambeeyay aan saadaalinay isla markaana aan sheegaynay in uu dagaal ka dhici doono waa aaga Samakaab madaxweynaha Somaliland waxa uu qorsheenayaa in uu tago og kadib uu gudbo Goojacada iyadoo maanta la isku farasaaray wadadii uu mari lahaa lafteeda barnaamijkeena ayaan guud ahaanba arrimahaasi kaga hadli doonaa isii khaatumo guddiga ay kataliska warqad bay soo saareen ay ku eedeynayaan Somaliland in dagaalka iyadii ka dambeysay markaana ay dhibaateynayso dadka deegaanka Garowe xisad colaadeed ba ka taagan barnaamijkeena ayuu qayb ka noqon doono waxayna falanqeyn doono saaxiibkay Goori oo arrimahan si weyn la socday inta badan waxaad la socotaan in Laascaanood ay tahay hooy ay u tahay colaad isla markaana dagaaladu la filan karo mar walba inay qarxaan sida maantaba dhacday oo ilaa hadda dhowr aag ay xabadu ka socotaa oo ka dhacaysa aagagan kuwa badan oo kamid ah maalmihii u dambeeyay ayuu sheegaynay oo bulshada la wadaagaynay in halkaas ay ciidamo isku farasaareen kuwana ay soo fadhiyaan balse maanta ayaa si toos ah xabadu u bilaabatay gooni ma kor soo dhaw wala socotay wixii mataqaana maalmaha dhacayay iyo xaaladdu mataqaana sida ay tahay dagaalka meelaha la kala maray bal inoo bidam عكاشة وما سنتهاي إن معلمي لو ذي مالنا لصدق فحشيجة إن سمكاب يدبسار إن عيد ماذا سومالا نكو إسسي كوسي قل قليان سلام كان وقت والبلافريق على الدجال إنه هالكاس كدعم ودبنت الدجال كيساك أروتي أيو دعي وحنا هالكاس لسكفر ساري عيد إن هالكاس كوسقنا سومالا يعيد ماذا إسسي فودس دري ودبنت الدجال عدو قرار يا كدعي دجال كمركور جوج عدي إلى سعناد ويجيبوا ودقنا لكن مركي حاجة لسكفر ساري واللي بدجال كأكل هذا كذب أيوة حاو كفدي أجبري مجال لسعناد haddana duqeyn madaafiic ay ka socoto dhaawacyo fara badan ayaa isbitaalka magaalada Laascaanood la gaarsiiyay waxaana isku soo baxay ciidamada qayb kamid ah waxaana sheegeen in fadhiga laga kaco dagaalkana la galo marka xaalad halis ah ayaa halkaas ka jirto madaafiicda culculus ayaa hadda magaalada Laascaanood ku soo dhaceysay aaga bari ee maxalliga Goojacada waxaana la sheegayaa in dagaalku uu kululaaday SSC waxay soo bandhigeen laba sargaal oo mid yahay traffic midna uu yahay saraakiisha militariga ee maxalliga Somaliland oo halkaas lagu dilay dagaalka saaka Samakaab wali dagaalku uu socdaa duqeyntu way socotaa laakiin SSC waxay sheegatay inay ka saareen in Samakaabna waa wado muhiim ah oo waa wadada dhankaas iyo og aado ilaa Burco waana wadadii loo soo mar lahaa waxa kale oo la sheegayaa in sahay baawur waday oo ciidamada Somaliland halkaas Samakaab soo marayay jidka loo galay dagaalkuna uu saas ku bilowday SSC dhankeedu waxay sheegaysaa dagaalka in lagu bilaabay Somaliland wali dagaalka kama sal hadleen laakiin jidka in loo galay oo wadada laga xiray in ciidamadana ay soo gaari laayeen ilaa hadda Goojacada ayaa la sheegaya Cukaasho waxaan ognahay dhanka bari laftiisa in dagaal inuu ka socdo isla markaana shacabkana laga codsanayo inay dhiiga ay shubaan sidoo kalena aan ognahay iyadana aan maalmaha aan xoog u tabinaynay dagaalka halkaas ka dhici doono inuu yahay mid laba huraan ah maadaama labada ciidanba maalmo u dambeeyay diyaar garow matana ugu jireen ciidamada SSC ay ku fideen dhul badan oo horay isu gaarin haddana ay dalbanayaan gurmad in la gaarsiiyo qaarkood hadda ay gaareen dhanka bari عكاشة ورتا دجال كان مركز هربا إنه تاسانتي سوي مقطعي معلمي لصوت عفنا ولا سكسير دوانا يا مركا مهد عباشة أو كسوجن مشلي رأس مكاب أيا ساك دجال كقيب كأها أيضا وركنا الشيء إن مركز دبوا عرّي دنك يوج أسوق وددا أرعد يكون عاي حجاير نكير فوق هذا الدجال كا مركز حالة كلاتي إذا ما كلا سومال لنا ماشي كبحين سمكاب يدبوا قرشة سماين مركا دجال كاني وسير كلادي وحنا كليه معلمي لصوت عفوا ولا إسبلارنا أو علم السي وحسمينا جدقل يدجالو مالك عصب يدجال عصب يدجال هذا كفريين وحنا كوسي سقي علم داسي إن دجانا فربضنا يكون سقيين مركا إن كان هذا المحل هذا إن كان بري Goojacada dagaalku wuxuu ku bilowday laba qolo oo dagaalkii xagga ka socday maqlay oo ayaguna saxan ahaa ayaa xabad isku bilaabay halkaas ay rasaastu ka bilaabatay isla markiiba dagaalku saas ugu kulaaday haddana waxa waaye gurmad aad degdeg ah ay dalbanayaan waxayna saaka dalbadeen in maxalliga dhiig gawaariga wareegayso oo ayagana mataqaanay gawaari mikrafoon la wareegayso waxay codsanayaan in la soo gaaro oo dagaalka la galo oo fadhiga laga kaco in magaalada Laascaanood gudaheeda baawur ayaa la mikrafoon la dhex wareegayso teeda kale SSC waxay codsadeen dhiigag in looga dalbo Garowe iyo Boosaaso iyo Gaalkacyo ilaa iyo meel walba in dhiig laga keeno oo markaas dadka shacabka dhiig loo shubo ama ciidamada ku soo dhaawacmay dagaalka marka waxa u maleysaa dagaalkii barihi la soo dhaafay la saadaalinay dhaartii socotay labada dhinac SSC iyo nimankan kale maxalliga Somaliland inuu bilowday in labada sargaalna waa la soo bandhigay oo dhanka SSC ay soo bandhigtay Somaliland wax jawaab ma bixin in mayna soo bandhigin guul ay gaartay laakiin warar waxa la sheegayaa hoos ay ku soo qoreen inay sheegan inay jibiyeen nimanka argixisada SSC inay ku soo qoreen
page-kooda maxaa ku leeyahay Facebook-ka laakiin taas wax ka badan lagama hayo laakiin SSC dhowr mar ayay soo hadleen waliba saraakiil ayaa soo hadashay oo waxa soo hadlay maxaa odayaal oo dagaalka dhaawacyada waday waxay sheegeen in xaaladdu ay wanaagsan tahay dagaalku dhinac walba ka socdo ugu dambeyntiina SSC ay guul ka gaari doonto Cukaasho aad weyn goni waa maasan tahay sida aan la socono madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo xaalka ku xun yahay dagaalka ma taqaanay meelo badan kaga furan yahay waxaan ognahay in hadda uu burco ku sugan yahay isla markaana uu imaan doono isla maanta og uu doonayo inuu u soo gudbo dhanka ma taqaanay Goojacad taasna suurtagal ma sida la leeyahay laakiin isaga waliba guddi ay soo magacaabeen oo ka qayb galaysa 18 May in halka tagi doona ma taqaanay yeeshagan sabab suurtagal ku noqon kartaa horta Muuse Biixi Cabdi lama hayno Goojacad tagay Goojacad waxay noqotay godka naarta 24 saac dagaal iyo duqeyna ka socdo ayaga naftigooda Soomaaliland isku gumaadayo oo shalay waxay iska dileen dad laba qofooda oo markaas qaab qabiil oo dagaalka burcaduleedkeeda ka socdo saameeyay ayaa iska dileen marka Muuse Biixi hadda wuxuu ku sugan yahay burco wuxuuna u tagay inuu xaliyo dagaal beelad halkaas ka jiro si markaan xaalad jawi degan lagu soo celiyo maadaama meel walba laga kacay Muuse burco ayaa laga kacay oodal ayaa laga kacay oo hadda la sacaanood iyo meel kale laga kacay marka xaaladdu way ka sii dareysaa oo hadda gobolka Sanaag maalin dhoweyd ayadana waa arkaynay oo wixii ka jiray meelo fara badan Muuse Biixi loo kacsan yahay mucaarad Soomaaliland ku kacsan marka wuxuu isku dayaa meeshan hadda ceel shidaal ayaa la isku haystaa oo laba beelood ninka xataa wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaayna ka hadlayay wuxuu sheegay in meesha asagoo ka soo jeedo inuu ceel ku yaalo haddii ceelkaas meesha ku yaalo oo yiraahdo war qabiilkayga baan qof kale ugu soo dhawaanay Soomaaliland horumar ma gaarayso marka wuxuu sheegay in la iska joojiyo qabiilaysiga ceelka meesha laga helay waa la wada leeyahay oo Soomaaliland dhan ayaa iska leh marka waxa la isku haysto waa shidaal ka soo burqaday deegaanadaasi sida wararka ugu soo gaarayaan laakiin tan waxay ogtaa Muuse Biixi inuu waxba xalli doonin burco ayuu tagi doonaa dadkii garxajis ku kacsanaa isagoo xalay gabadha wariyaha xiray ayuu haddana wuxuu gaaray dhul garxajis oo leeyahay marka waxa u malaysaa in meeshaas wax wanaagsan ka imaan doonin Muuse Biixi inuu tago og waa laga yaabaa oo xadka labada dhinac inuu tago waa laga yaabaa laakiin u malaymaa inuu inta la sacaanood iyo Goojacad tago dagaalka oo san gali doonin ninkan waa laga yaabaa inuu dagaal isku dayo ninkan in cabsada ma aha dagaalna wiligiis ku jiray laakiin hadda hadii Muuse Biixi liira Goojacad ku dhintay fashil iyo ceeb ka weyn Soomaaliland u soo yeelay ma jirto marka ilama ahno si toos ah Goojacad u tagi doono laakiin meelo ka yara fog inuu xaflad ku dhigo oo 18 May ku soo bandhigo waa laga yaabaa Cukaasho aad weyn waa maasan tahay daawadayaal guddiga ay ka tashiga ee gobolada SSC waxa ay soo saareen warqad ay kaga hadlayaan in dagaalka saaka uu ahaa mid xaq darro markaa soo qaaday Soomaaliland ee ka jawaabeen eeda loo soo jeeday in iyaga dagaalka ay bilaabeen kuna eedeeyeen in Soomaaliland wali ay wado daandaansiga isla markaana ay weerar ay ku soo qaadayso dhulka ay ka arrimiyaan SSC Khatum goono intaas kaga dhamaano dhankaas iyo reer Khatum hal waxaan ku dari lahaa aad weyn sababta hadda ciidamada maxaa la yiraahdaa Soomaaliland ay weerarka iyo gaadmada iyo dagaalka u bilaabeen waxa lagu sheegayaa xalay waxa baxay ciidamadii Puntland oo ku sugnaa aaga bari kuwaas qayb ka mid ah marka waxay ku laabteen garowe xisid ka jirta dagaal ayay aadeen marka sababtaas ay waxay u maleeyeen in ciidamada Puntland gabi ahaanteed ay baxeen waxay isdhaa marka SSC hadda jilcan tahay maadaama ciidamo ay ka baxeen meeshaasi marka waxay u soo dedejiyeen dagaalka in ka faa'iideysi ay ahayd oo inay waxay rabeen dagaal ku boobsiyaan si markaas ay u qabsadaan Goojacad iyo la sacaanood iyo gabi ahaanba in SSC dhulka ka soo gantaa meeshaas inuu raacay khilaafka ka taagan idana garowe waxa ka taagan khilaaf ku saabsan doorashada taasoo Saciid Cabdullaahi Dani uu sheegay inuu qaban doono doorasho qof iyo cod ah arintaas muddooyinka la soo dhaafay isku haysteen xalay ciidamada ka baxay meesha la yiraahdo la sacaanood waxa iska lahaa si qaas ah ay ugu amar qaataan Cabdiraxmaan Faroole iyo Xasan Shire Abgaal ninka hore wasiirnimada laga qaaday oo isku dhaceen Saciid Cabdullaahi Dani wasiirka hore maaliyadda marka labadaas nin ayaa ciidamada iska lahaa markay garowe gaareen waxay weerar ku qaadeen meesha meel oo maxaa la yiraahdaa kaarar lagu qaybinayo oo codbixiyaasha la isugu keenay habeennimadii ay weerar ku qaadeen halkaas markay rasaas ka dhacday dadka shacabka iyo askartii rasaas baa la suwiyay kadibna xabadu way joogsatay laakiin wali way soo fadhiyaan ciidamada waxaan u malaysaa Saciid Cabdullaahi Dani inuu awood adeegsanayo nimankan la yiraahdo mucaaradka Aranjan iyo ragga kale saraakiishan ayaguna inay isku dayayaan inay awood adeegsadaan marka xiisad dagaal halkaas saas ay ugu jirtaa waxaana la sheegayaa in dowladda federaalka Soomaaliya ay qayb ka tahay oo ay taageerayso mucaaradka Puntland Cukaasho aad weyn waad mahadsan tahay saaxiib gooni daawadayaal waxaa intaas ku soo afmeerna barnaamijkan kooban ee ku dulmeerna xaaladaha ka taagan ama dagaalka ka taagan magaalada la sacaanood iyo waliba xiisada siyaasadeed ee ka taagan iyadana garowe wali waxa noo soo socdo xogo kale oo muhiim ah ku saabsan dagaalkan maadaama dagaalkii uu socdo ilaa haddana wali khasaaraha rasmiga ah aan la sheegi karin balse saacadaha nagu soo aadan insha Allah waxaad naga filan doontaan akhbaar midan ka duwan ama sidii muuqaal sheer gare asxaabteena la wadaaga